وقل رب زدني علما. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. waxaan ku soo jirnay risaaladii الرازيين imaamkii weynaa abu zurca ka mid ahaa culamadii muslimiinta ee saddexdii qarni ee rasuulku salى الlahu عalيه wasalam ammaanay noolaa. waxa uu dhintay raximah ullah 264 iyo sidoo kale imaamka la yidhaha abu xaatim oo isaguna dhintay 277. waxaa noo soo dambeyday in cabdiraxmaan ibn abi xaatim uu yihi wasamictu abi yaquulu wacalaamatu ahli اlbidaci alwaqiicatu fi ahli اlahar. wuxuu yihi wasamictu waxaan maqlay abi aabbahay oo yaquulu odhanaya wacalaamatu ahli اlbidac, dadka ahlu bidac ah oo diinta wax ku soo dariyo diinta wax ku soo kordhiya calaamad waxaa u ah oo astaan u ah alwaqiicatu inay wax ka sheegaan oo ku dhacaan fii ahli اlahar, dadka xadiidka u saaxiibkaa, dadka sunnada u saaxiibkaa oo aharka qabsada. aharka waa xadiidka waay. alahar bimacna alma'huur, wixii nebiga salى اllahu عalayh waaalih wasalam laga soo arooriyey iyo saxaabadiisa dadka ku dhega oo qabsada in la duro oo wax laga sheegaa waa calaamaadka ahlubidaca. yacni qofkii imaam shaafici raximah اllahu tacaala dura, imaam axmed bin xambal wax ka sheega, culammadii muslimiinta ee lagu yaqaanay sunnada inay raacaan duro oo ceebeeya, waxay calaamad u tahay isagu inuu duran yahay. qofkii saxaabada nebiga ridwaan ullaahi tacaala calayhim wax ka sheega alwaqiicatu fiihim ee aan ammaanin, waxay calaamad u tahay qofkaasu inuu yahay qof saaxibulbidca. qaala abu xaatim waxa uu yidhi wacalaamatu zanaadiqa. abu xaatim caalimkaa weyn wuxuu yidhi wacalaamatu zanaadiqa, zanaadiqada kuwa islaamka sheegta laakiin aan dhab ahaan islaamka ahayn, waa munaafiqiinta, calaamad waxaa u ah tasmiyatuhum ahla sunna, inay ku magacaabaan dadka sunnada raaca xashawiya, waxaan qiimo lahayn. qofka sunnada raaca, sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ee iyada ku dhegan, qofkii ku sheega waxaan qiimo lahayn xashwi ah, waxa weeye wuxuu leeyahay sheekhu waa munaafiqnimo. sababtu waa maxay? wuxuu leeyahay yuriiduuna waxay doonayaan ibtaala alaahaar, aahaarta waxa la soo arooriyey axaadiistii iyo inay buriyaan oo baabi'iyaan. nimanka munaafiqiinta markii ay ku dhici waayeen inay si toosa u weeraraan axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam, ayay waxay weerareen dadkii axaadiista xambaarsanaa ee dadka baraayay ee ku dhaqmayay. laakiin ulajeedkooda waa maxay? axaadiistay rabaan inay weeraraan, sunnada nebiga sal inaanay dadka gaarin. waa munaafiqnimo. marka qofkii raba diintii islaamku inaanay dadka gaarin oo sunnadii nebiga sal slam aanay dadka u gudbinin, waa munaafiqnimo. laakiin toos uma weerarayaane dadkii sunnada xambaarsanaayay wax ka sheegayaan. wuxuu leeyahay wacalaamatu ljahmiya, jahmiyada calaamadoodu waa nin la yidhaha jahm binu safwaan, kuwa raacayo ilaahay sifaadkiisay dafiraan. ilaahay wuxuu isku sifeeyey, isku tilmaamay ee qur-aanka ku sugan, nebigu sala اllahu alay slam ilaahay ku sheegay diidaan. waxay leeyihin tusaale ahaan ilaahay ma hadlay leeyihin, qur-aanku hadal alle maahay leeyihin, ilaahay subxaana wa tacaala kor ma jiray leeyihin. intaasna ilaahay baa isku sheegay. kuwa calaamad waxaa u ah tasmiyatuhum ahla sunna, ahla sunnaha inay ku magacaabaan mushabbiha, kuwa ilaahay khalqigiisa u ekaysiiya. marka dadka ilaahay sifaadkiisa diida oo jahmiyada ah, ahlu sunnaha waxay ku magacaabaan mushabbiha, tashbiih bay sameeyaanay leeyihiinoo ahlu sunnuhu ilaahay iyo wax isu ekaysiiyaan makhluuqaadkiisa. ahlu sunnuhuna ilaahay cidna uma ekaysiiyaan, laysa ka midlihi shay, ilaahay wax u eg ma leh, wax lamida ma leh, wax u dhigma ma leh subxaanahu wa tacaala. laakiin taa macnaheedu ma aha inaan ilaahay sifo loo sugin, taa macnaheedu maaha inaan ilaahay lagu sheegin wuxuu isku sheegay subxaanahu wa tacaala.
qaala mualif wacalaamatu alqadariya nimanka qadariyada la yidhaahdo ee qadarka diida ee yidhaha ilaahay wax ma qorin wax la qoray ma laha looxu maxfuud wax laguma qorin alamru unuf yidhaahda waqtigii saxaabaday soo baxeen cabdullaahi ibni cumar oo kacbada sii gela aa laba taabiciya hareeraha ka galay waxay yidhaahdeen cabdullaahi ibni cumarow saxaabada nebigaa ka mid taha qole waxaa ka soo baxday dhulkan basre ciraaq odhanaysa alamru unuf fii saxiix muslim u laabo saxiix muslim ku yaalla alamru unuf wax la qoray ma lehay leeyihiin ka war wuxuu yidhi waxaa u sheegtaan inaan beri ka ah iyaguna beri iga yihiin ilaahayna aanu waxba ka aqbalayn inta ay ka rumaynayaan qadarka kadibna wuxuu akhriyey xadiidu jibriil marka qadariyada waxaa calaamad u ah ahlu sunnaha inay ku magacaabaan tasmiyatum ahla sunna mujbira ama mujabbira kuwo dadka inay qasban yihiin aaminaya oo qofku aanu khiyaar lahayn uu ku qasban yahay hadduu zinaysto wuu ku qasban yahay hadduu cibaadaysto wuu ku qasban yahay hadduu khamrada cabo hadduu dadka dhaco hadduu dembi galo waxay leeyihin qofku khiyaar ma laha kuwo la yidhaaha kuwa sidaa odhanaya jiro mujbire la yidhahdo oo markay qadariyadu diideen ilaahay inuu wax qoray kuwaana waxay yidhahdeen alla waa qoray waxaana ka dhalanaya qofku khiyaarba ma laha war maxaa u zinaysanaysaa ilahay maa ka cabsada wuxuu ku leeyay qadarka ilaahay aniga khiyaar ma lihi akhi meesha ilaahay waxay yidhahdeen waxaan la midnahay geedka caleemihiisoo dabaylu ku timaado hadba dhinac u jeedine khiyaar ma lihin bay leeyihin waxaa la yidhaha kuwa mujbira ama mujabbira waa qasbannahay ku leeyihin qadariyaduna waxay leeyihiin inaan qasbanaano iska dhaafa innagaaba abuuranayna waxaan samaynayno ilaahay wuxuu qora ma laha ahlu sunnuhu waa u dhexeeyaan ahlu sunnuhu waxay leeyihin qadarku waa xaq wax walba ilaahay baa qoray qur-aankay ku yaalaan ilahay qur-aanku ku sheegay ina alam taclam ana allaha yaclam ma fi الsamaai walard miyaadan ogeyn ilahay inuu og yahay wax walba samada ku jira wax walba dhul ku jira ina dalika fi kitaab kaasi kitaabu ku sugan yahay ina dalika cala allah yasiir taa ilahay waa u fududa wax walba ilahay waa qoray aayad kale ilahay wuxuu yihi ma asaabakum musiibatin fi lardi walaa fi anfusikum ila fi kitaabi min qabli an nabra'aha wax musiiba idinkuma dhacaan dhulka ama naftiina kuma dhacaan ilaa fi kitaabin hadday dhacaan kitaabay ku sugnayd min qabli an nabra'aha musiibadaa intaanaan abuuray intaysan dhicin ilaahay kitaabuu kusii qoraba aayad kale ilahay waa ka yidhi walaa radbin walaa yaabisin ila fi kitaabin mubiin wax qoyan iyo wax qallalan toona ma jiraan kitaab caday ku qoran yihin nebigu sala allahu alayh waaalih wasalam saasoo kale waa caddeeyey ilaahay baa wuxuu yidhi nebi sal slam in allaha tacaala kataba maqaadiira alkhalaa'iq qabla an yakhluqa alsamaawaati waalard b50 alfa sana wax walba ilaahay wuxuu jaangooyey intaanu samada iyo dhulka abuurin 50,000 oo sano ka hor ilahay waa qoray ahlu sunnuhu marka waa rumaysan yihin wax walba ilahay inuu qoray caawa waxaan samaynayno inta aan nahay meeshan ku jirno wax walba ilahay kitaabu ku qoray wax ilahay ka qarsoon ma laha waa looxu maxfuud waay wa cindahu umu lkitaab ayib laakiin taa macnaheedu maaha waxa ay mujbiradu ka fahmeen oo leeyihin waa qasbanaa maya ilaahay khiyaarowna siiyey qofkii raba inuu cibaadaysto ilahay idankiisa wuu cibaadaysan karaa qofkii raba inuu macsida ka tago ilahay idankii wuu ka tegi karaa kuma qasbana qofka dadka dhacaawo ama dadka caaya kuma qasbana qof khiyaar u sameeye waa laakiin khiyaarkaas wuxuu hoos imaanaa kii ilaahay subxaanahu wa tacaala amarka ilahay waxba kama baxaan marka qadariyada aan qadarka ogolayn ayaa ahlu sunnaha qadarka sugaaya balse odhanaya qofku khiyaar uu leeyahay faman shaaa itakhada ilaa rabbihi sabiilan qofkii doona rabbigii jid ha ka samaysto faman shaaa falyumin waman shaaa falyakfur kan doonaa ha rumeeyo kan doonaa ha kufriyo qofka ilaahay khiyaar buu siiyey uu khayrkana ku sameey shartan uga tago ahlu sunnihii saa odhanaya waxay leeyihiin mujbiratiin saa haddaad dhahdaan qadarka aad rumaydaan sheekh wuxuu yidhi wa calaamatu lmurji'a nimanka murji'ada ee yidhaahda iimaanku waa qalbiga oo keliya jazaaka allahu khayran ama waa afka oo keliya ama waa qalbiga afka ama waa in xaqa afka laga garto qalbiga laga garto oo keliya murji'a waxaa la qolooyinka in diinta lagu dhaqmo sida sujuudi iyo rukuucdii cibaadadii khamradoo laga tago waxay ku leeyihiin iimaan maaha iimaanku waa inaad qalbiga xaqa ka rumayso haddaad qalbiga xaqa ka rumaydo mu'min waxaa tahay iimaankaaga u dhamaystiran yahay wax kaa qaldan male
adiga iyo malaku jibriil adiga iyo nabiyullahi xuseen isku iimaanaad tihiin bay ku leeyihin maxaa yeelay qalbiga iimaanku waa qalbigina waa ka rumaysantaa nebiguna waa rumaysnaa ahlu sunna waxay qabaan maya iimaanku keliya maaha qalbiga afkana waa inaa uga dhawaaqdo wixii looga dhawaaqo afka oo diinta ilaahay ka mid a iimaankay ka mid tahay xubnaha wixii looga dhaqmo salaadii soonkii waa iimaan maxaa yeelay nabiga sal allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba wax walbo ahlu sunnuhu qabaan walaalo daliilay u haystaan saasa ahlu sunna loo yidhi hadda masaa'ilkan caawa meesha ku sheegno midaadan fahmin sheekhu daliil ma sheegayo kitaab lasoo koobo waa daliilka kutubo kale lagu sheega lagu faahfaaya mas'alada aadan daliil u ahayn waxaad caawa oo dhan maqlayday daliilka i weydii intaana meesha ka kicin macnaha ahlu sunnuhu saas waa dad sunnada raacawa hawadooda maaha marka maxaa daliil u ah iimaanka inuu yahay in lagu dhaqmo oo afka laga yidhaahdo oo xubnaha oo qalbiga laga rumeeyo xadiis saxiixayn aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba aclaaha qawlu laa ilaaha ila allah wa adnaaha imaatat aladaa can ariiq walxayaau shucbatu min aliimaan nabi sal slam iimaanku waa 70 dhowr qaybood waxaa u sareeya qawlu laa ilaaha ila allah oo raahda ah laa ilaaha ila allah waxaa u hooseeya dadka waxa dhibaayo jidka laga wareejiyo walxayaau shucbatu min aliimaan xishoodkuna qayb iimaanka ka mida wa marka saddexdii qaybood nabi sal slam sheegay qowlkii laa ilaaha ila allah ficilkii jidkoo laga wareejinaayo dadka waxa dhiba hadda aragto dhagax dadku ku kufaayaan masaajid iridiisa yaal see ku wareejinaysaa afka maa ku qaadaya sheekh ma afka ku qaadi maysa qalbiga maad ka tuuraysaa dad qalbiga ka xanaajiyay dhagax meesha ka qaadi ma dhacayso saas maxaa samayn xubnaha waa iimaanku ka mid yahay aliimaan bidcun wa sabcuuna shucba oo bidcun wa sittuuna shucba aclaaha qawlu laa ilaha illah wa adnaaha imaatat aladaa can ariiq walxayaau shucbatu min iimaan yaa yidhi nabiga sala allahu alayh waalihi wasalam haddaba diintu waa iimaan wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ay salaatakum soo lama socotiin waagii hore waktigii nabi sal slam maka uu ku noolaa qibladee loo tukan jiray salaadda halkee loo tukan jiray yaa xasuusan kara waxaa loo tukan jiray baytulmaqdis falastiin xataa markii nabi sal slam madiine yimid hal sano 6 bil hal sano 7 bil labadaa midood weli waxaa loo jeesanayay dhinaca baytulmaqdis dhinaca falastiin baytulmaqdis kacbadiina gadaalay ahayd ogow maka gadaalay ka jirta markii ilaahay bedelay qibladii fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam saxaabadii noolaa markaa waa welweleen waxay u cabsadeen dadkii kale ee muslimiinta ahaa ee iyagoo baytulmaqdis u tukanaya dhintay salaadoodii ka kac waaye saasay u moodeen ilaahay aayad qur'aan soo deji wuxuu yidhi wamaa kaana allaahu liyudiica iimaanakum ilaahay ma aha mid idinka luminaya idinka khasaarinaya iimaankiina ay salaatakum waaye marka salaaddii marka waa iimaan sama allahu subxaana wa tacala asalaata iimaanan almuhim waa yahay wa calaamatu lmurji'a marka nimanka murji'ada ee iimaankii qalbi un ku koobaya astaan waxaa u ah tasmiyatahum ahlu sunna ahlu sunnaha inay ku magacaabayaan mukhaalifa kuwa mukhaalifa wa nuqsaaniya iyo kuwa odhanaya iimaanku waa naaqusa ahlu sunna waxay aaminsan yihiin iimaanku wuu bataa waana naaqusa habeenkaad masaajid ka imaato caawo oo kale insha allah ilaahay darti u timid bal ilaahay xuskiisa inaad ka qayb gasho inaad mas'alo diin oo kaa qarsooneed aad barto inaad waxaad hore u taqaana lagu xasuusiyo beytka ilaahay hawska ilaahay inaad joogto insha allahu alkariim iimaankaaga waa ku zaa'ida adiga laftirkaaga waa dareema sheekh haddaad meesha aad masaajidkan ka timaada aadan yeelin halkaa ku leexato kalaabkaas ee aad madaxa ruxdo oo aad kor u booddo hoos u booddo sigaar baf ka siido qamro aad ka bato sheekh iimaankaa waa naaqusa adiga laftirkaaga waa dareemaysaa walwal iyo walbahaar xiriir fiican aad alla la lahayn subxaanahu wa tacala waa dareemay sheekh aliimaanu yaziidu wayanqus marka nimankan murji'ada iimaan kuma kordhay leeyihin waa qalbiga waa rumayday daaseen aan iska dhaaf afqalaad waaye qalbigaa ka rumayday kuleeyihin mar haddaa qalbiga ka rumaydo mu'min baa tahay iimaanku marka ma naaqusay kuleeyihin mana kordho ahlu sunna wacdi yaziidu wayanqus iimaanku waa zaa'idaa bitaaca alla ka cabsi alla adeecid wayanqus bilmacsiya qofkuna waa dareemaa sheekh marka waxa weeyaan iimaanka aan zaa'idsano jamaaca qofki walaala iimaanka haka zaa'id masaajid ilaahay waa ku zaa'ida ilaahay meel lagu xusaayo sadaqadoo la bixiyo aabbayo hooyo la xiriiriyo adeero abtiyaalo habaryaro eedooyin qaraabada muslimiinta walaalaha oo loo naxariisto iimaanka waa ku badanaya ilaahay baad ugu dhowaan
xumidoo laga fogaado gaar ahaan dhalinyarada heesaha ka fogaada darooga ka fogaada jaadka ka fogaada jaadka dadka waaweyn waa dhalinyarada badana ma bilaabay jaadka ka fogaada dubnada ka fogaada wax xunna ka fogaada sheekhu wuxuu yidhi raximahullah wa calaamatu raafida nimanka raafidada calaamad waxa ah shiicada way tasmiyatuhum inay ku magacaabaan ahla sunnati dadka sunnada raaca naasiba kuwa necab ahlu beytka shiicadu waxay aaminsan yihiin ahlu sunnuhu inay ahlu beytka nebiga sal ll ly slam necab yihiin saasay aaminsan yihin shiicada adii shiica weliga ma la kulanta magaalada waa joogaan baa lagu yiri anu maana arkin la kulan waxay aaminsan yihiin ahlu sunnuhu inay necab yihiin nebiga sal slam qoyskiisa cali necab yihiin faadima necab yihiin xasan xuseen necab yihiin waxaas iska dhaadhiciyeen waana been ahlu sunnuhu iyagaa u jecel ahlu beytka nebiga calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay kuma talax tagaan uma caabudaan dhinaca kalena waa jecel yihiin waana raacan waana ku daysadaan waad ogtiin shiicada jacaylkoodu xadku intuu dhaafay bay dembi kuga dhaceen maalinta caashuura waa soo baxaan haweenkay caruurta dhabarka iska garaacaan dhiigay iska daadiyaan waa dildilaacinayaan waa qaylinayaan haddaadan saas samayn waxay ku leeyihin cali ma jecli muxuu ahaa xuseenka nixmaydi mana jecli una murugoomaydi waxaasu jacayl maaha sheekh walaa taqtuluu anfusakum ilaahay naftiina ha dilanina fahimta wala la marka saasoo kale haddaadan barin yaa xuseen dhihin midkood hadduu rabo inuu kaco oo gacanta u fakato adiga muslimka meesha ka tira yaa allah yaa rab aad tiraahdo tawxiidka qalbiga kaa buuxa iyagu yaa xuseen bay leeyihin yaa cali haddaadan yaa cali yaa xuseen waxay ku leeyihin cali xuseen ma jecli cali xuseen waa jecela laakiin u yeera maayo see xuseen ugu yeertaa sheekh muxuu ii qabana asaga laftirkiisaan leedihin waa la dilay qolada kiristaanka ma xasuusana waxay ku leeyihin jesus waa la korsafay waa la dilay 3 maalin qaylinaayo waa rabbi waa u ka tegey saasay taana waa baryahay america u naxariisay ku leeyihin jesus balaas america muxuu naxariisaa sheekh isagu muxuu isu naxariisan waayo marka waxay ku leeyihin yaa xuseenay ku leeyihin xuseenna waa la dilay ku leeyihin xuseen waa la dilay ku leeyihin waana tuugaya waa madaxiisaa la jaray waa run waa la sameeyey waxaasoo niman dhaalimiin oo mujrimiina sameeyey shiica laakiin taariikhda qofka akhriya oo nimanka shiicada weeye nimanka waxa weeye sabab u ahaa arrinta iyada calaa kulli xaal nimanka shiicada marka ahlu sunnaha waxay leeyihin waa naasibo ahlu beytkay necab yihin runna maaha ahlu sunnuhu ahlu beytka waa jecel yihin saysan ahlu beytka u jeclayn saxaabada dhan bay jecel yihiin ahlu beytku saxaabadii nebiga ridwaanullahi tacaala calayhim ka mid yihiin cali waa saxaabadii nebiga xasan xuseen waa saxaabadii nebiga saxaabanimo waxaa u dheer waa qaraabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam faadima bintu rasuulillaah waa gabadhii nebiga calayhi salaam laba xaqay leedaha marka xaqu liimaan wasuxba iyo xaqu qaraabadii nebiga waa calayhi salaam maxaa yeele nebigaad jeceshahay ubadkiisa mu'miniinta inaad jeclaatid wa lamid maaha dadka kale laakiin ahlu sunnuhu ma caabudaan umana yeertaan hada wadaadada qaarkood haddaadan sheekh cabdulqaadir jeylaani tuugsanoo gacmaha u taagan karaamada awliyaa diiday ku leeyihin saasaa u qallashay awliyada wax ka sheegta wareedha saa maaha sheekh saa maaha mid baa ugu yidhaani sheekh cabdulqaadir baad wax ka sheegtaa sheekh cabdulqaadir waxaan ka sheegaa hor sheekh cabdulqaadir mataqaanaan ku yidhi wallahi wax badan kama aqaan kulli waxaan oga wadaad soomaali ilaahay ka cabsan jiray inuu ahaa sheekh cabdulqaadir jeylaani wadaad soomaaliya maaha sheekh ciraaqi oo ciraaqi oo raximahu llahu tacaala mana necbi wallaahi waa culamadii muslimiinta waa culamadii muslimiinta ahlu sunnuhu waa jecelin sheekh cabdulqaadir jeylaani raximahullah waxaan laga sheegaa waa been sidaas si lamid ahlu sunnuhu nabiyullah ciise waa jecel yihiin waa qadariyaan waxaan laga sheegaa nabiyullah ciise waa lagu been abuurtay ma la fahmaya jamaaca marka dadka qaara haddaadan awliyada baryin waxay aaminaan inaa awliyada karaamadeeda diidan tahay awliyada karaamadeedu waa xaq laakiin maaha in la baryo in la tuugo maaha xaqi alla in la siiyo maaha ayib waa soo khatimaya marka wuxuu leeyahay walaa yalxaqu wax ma haleelayo ahla sunnati sunnada dadkeeda ma haleelayo ila ismu waaxid hal magac mooyaane ahlu sunno un weeyaan sunnada un bay raacaan mujibirana maaha naasibana maaha xashawiyana maaha ma aha waxaasoo dhan waa un ahlu sunno waa wayastaxiilu waxaana suurtagal ahayn buu leeyahy an tajmacahum inay kulmido haadihi alasmaau magacyadan dhammaanteed inay ku wada kulmaan iskeeni mayso nebigu waxay dhaheen waa waalan yahay gaaladii waaye waa majnuunay dhaheen haddana waa gabiyaayay dhaheen haddana waa saaxiray dhaheen war waxaan iskeeni maayaan nin waalan gabiyaa ma noqon karo sax walaala
nin majnuunaha muxuu gabiyaa gabay waxaa gabiya dadka kuwa ugu maskaxda badan oo wax isku aadiya oo cabqariyiinta ee caqliga badan ee cilmiga badan luqadda yaqaana ayaa gabiya qof kasta ma gabiyo waxay leeyihin waa gabiyaa waa kaahin wamaca haada waxay leeyihiin waa majnuun waa waale madaxa looga jira waxaa yeelaya bal hum qawlun inahum la fii qawlin mukhtalif qofku markuu baadil ku sugan yahay wax qaldan ku sugan yahay rabana qaladka inuu difaaco waxa ka soo baxaa ma oga isagaa isburinaya fahum fii amri mariij sida aweed baa warkooda dhan iska hor imaana saas waa qofka ahlu sunnaha wax ka sheega isagaa iska hor imaana qofaa ku oran nebiga sal slam ma jeclin haddaadan mawlidkiisa dhigin yaa akhi sene nebigu u jeclayn qofka muslimkaa maalin walba shanta aadaan markuu maqlo nebiga sal slam waa ku saliya iqaamada nebiga waa ku saliya salaadu tukada nebiga waa ku saliya salaadu ansaxmi maydo nabiyullahi maxuud haddaadan ku salin seena u jeclayn nebiga ilaahi sal alla ly slam waxa la diidan yahay laakiin waa salligan wax lagu dardaro waa salliga nebi sal aanu dadka barin marka calaa kulli xaal wuxuu leeyahay mualifku wasamictu abi waa jumlada ugu dambeyday wasamictu abi waxaan maqlay aabbahay wa abaa zurcata iyo abaa zurca ya'muraani oo amraaya bihijraani ahli zayr in laga hijroodo oo laga tago dadka diinta ka leexanaya iyo walbidaci bidcooyinka samaynaya dadka diinta ilahay wax ku soo daraya oo diintii bedelaya in laga fogaado ayay aabbahay iyo abu zurca amri jireen culamada muslimiinta dhana amre maxaa yeele ilahay baa wuxuu yidhi waidaa ra'ayta aladiina yakhuuduuna fii aayaatina faacrid canhum xataa yakhuduu fii xadiisin gayrih waqad nazla calaykum fi lkitaabi an ida samictum aayaati illahi yukfaru biha wayustahzau biha falaa taqcuduu macahum xataa yakhuduu fii xadiisin gayrih gaal islaamka caayaha dhegeysan ya akhi inkaar qabahan wuxuu leeyahay dhegeysana hadhihin ilaahay subxana watacaala diintiisa wuxuu ka sheegaya dhegeysan sidoo kale qof diinta bedelaya oo wax ku daraaya wax ka dhimaaya waxaa nabiyullahi maxamed salam dadka uga diindhigaaya sheekh ka hijiro ilahay dartii uga tag kana waa dhegeysaa kana waa dhegeysaa hadhihin saa haddaa tira waa wareeraya dhow wadaadaana wareeriye kuleeyi duul wadaad wareeriyaana waa wareeri haddaad wax kale soo horjeeda oo isburana aad midkaana mar horido midkaana mar horido waa wareere sheekh waxaadan ku wareerayn laakiin taraktukum cala almaxajati albaydaa layluhaa ka nahaariha laa yaziiqu canha ila hali nebigu sal lla ly slam wuxuu yidhi waxaan idinkaga tegay jid cad taraktukum cala almaxajati albaydaa dariiq cadaan idinkaga tegay layluhaa ka nahaariha jidka aan idinkaga tegay ee cad habeenkeeda iyo maalintu waa isku mid laa yaziiqu canha ilaa haali kama leexdo oo kama lumo ilaa qof halaagsama mooye yaa akhi diinta aan isku wada waafaqsannaha aniga aduguba waa qur'aanka kariimka waa sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam soo sax maaha akhi inta aan ku dhegno hada wallahu aclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wax su-aala hadday jiraan insha allahu tacaala wakti badan idinka qaatay wadaadkan ii fara jaawina fariiso shariifo saa looguma waco mataqaanaa qofaad rabto inaad su-aal diina weydide haye baarak allah fiik bismi illah